waxaan war dheeraad ah ka helnay arad oo ku taala koonfurta Israa'iil halkaas oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu booqday Axadii in ka badan 80 qof ayaa ku dhaawacmay gantaalada ay Iran Sabtidii ku garaacday magaalada. Netanyahu ayaa sheegay inay ahayd mucjiso inaanan qofna la dilin, waxa uuna ku booriyay shacabka Israa'iil inaysan fududeysan, isaga oo sheegay in uu u baahan yihiin in ay galaan goobaha shacabka inta lagu jiro digniinta gantaalada. 10 daqiiqo ayay socotay digniinta ilaa uu gantaalku soo dhacay, ayuu yiri. Gantaalka waxa uu ku dhacay halkan inta u dhaxaysa dhismaha, oo haddii qof walba uu bixi lahaa inta lagu jiro daqiiqadahaas meelaha la ilaaliyo uu gali lahaa hoyga dhismo kasta hoostiisa. Halkan qofna waxba ma soo gaareen. Ha noqon kuwa isdhigta, sidaas oo kale ha noqonina kuwa aan dan ka lahayn, ayuu sii raaciyay. Marka aad maqasho digniinta ugu horeysa, isla markiiba tag meesha la ilaaliyo. Ma jirto qiimeyn lagu xaqiijinayo sheegashada Israa'iil inay Iran haysato gantaal ridadiisu u dheeryahay oo gaari kara London, sida uu sheegay wasiir ka tirsan xukuumadda UK. Xogayaha guryeynta Steve Reed ayaa BBC-da u sheegay inaysan jirin qiimeyn gaar ah oo ay Iiraaniyiintu ku beegsan karaan UK ama xitaa haddii ay rabaan, kadib markii ciidanka IDF ee Israa'iil ay sheegeen Sabtidii in Tehran ay haysato hub gaari kara ilaa 4,000 oo kiiloomitir oo qiyaastii maylaha markii loo sheegay gaari kara 2,485. Arrintan ayaa timid kadib markii ay soo baxday in Iran bartilmaameedsatay saldhigga militariga ee ay wadaagaan Mareykanka iyo UK ee jasiiradda Chagos ee Badweynta Hindiya, kaas oo qiyaastii u dhexeeya 3,800 oo kiiloomitir. Iran iyo halka ay bartilmaameedsatay Reed waxa uu diiday inuu sheego sida ay wax u dhaceen gantaalka dhulka Ingiriiska, isaga oo sheegay in aanu la wadaagi karin faahfaahin howlgalkan. Iran ayaa 2 gantaal oo balaastig ah ku dhufatay deegaanka Qarsia, mid ka mid ah waxa uu ku dhacay halkan, midka kalena waa fashilmay Jimcihii, ayuu sheegay. Dad badan ayaa isweydiiyay xiritaanka marinka Hormuz muxuu ugu dhigayahay dunida. Qiimaha saliidda iyo gaaska ee adduunka ayaa si aad ah kor ugu kacay iyadoo ay saameyn ku yeelatay dagaalka iyo xiritaanka marinka Hormuz. Qiimaha gaaska Yurub ayaa kor u kacay in ka badan 30% kadib markii shirkadda ugu weyn adduunka ee soo saarta gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ee Qatar Energy ay sheegtay inay joojisay wax soo saarkeedii. Wax soo saarku wuxuu noqday mid aad muhiim u ah wadamada Midowga Yurub kadib markii ay yareeyeen ku tiirsanaanta ay ku qabeen gaaska Ruushka. Qatar ayaa bixisay qiyaastii 5 meelood meel gaaska dareeraha ee dabiiciga ah ee adduunka oo dhan. Qiyaastii 5 meelood meel wax soo saarka adduunka ee saliidda ceyriin ayaa maray marin biyoodkan aadka ciriiriga ah, kaasoo ballaciisu uusan ka badnayn 40 kiiloomitir marka uu ciriirkiisu badan yahay. Wadahadallo socday ka sokow maamulka badaha, wasaaradda gaadiidka Mareykanka ayaa horaantii bishii Febraayo soo saartay qodobo ay kula talinayso maraakiibta ganacsiga ee calanka Mareykanka wata inay iskaga fogaadaan sida ugu macquulsan biyaha dhulka Iran. Dhinaca kale, Iran ayaa hanjabaad buuxda u dirtay Israa'iil iyo Mareykanka iyo dalalka Khaliijka. Iran waxa ay si kalsooni leh u leedahay afhayeenka baarlamaanka Iran Mohammad Berjeh ayaa ku hanjabay in uu burburin doono kaabayaasha muhiimka ah ee gobolka Khaliijka haddii aysan arrintan wax iska bedelin, ayuu yiri. Haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay beegsadaan xarumaha tamarta ee dalka